shirkadda Cadceed Group dharka ay dalka keenaan waxa raga dhameystiran quruxna loo daa. subax wanaagsan dhageystayaal qodobada wararka raadiyaha kulmiye saaka kuwada ugu waaweyn waxaa ka mid ah shirkii IGAD oo ay heshiis ku kala saxiixdeen dhinacyada isku haya dalka koonfurta Suudaan iyo dawladda Soomaaliya oo ka hadashay gudoomiyaha golaha shacabka oo la kulmay musharaxiinta koonfur galbeed uu ka miyahay Sheekh Mukhtaar Robow dagaal u dhaxeeya laba beelo oo deegaan hoostaga magaalada Garowe oo xal laga gaaray kooxo hubeysan oo xalay dad rayida ku dilay suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle uu yeeray madaxweynaha maamulkaasi mid ka mid ah saraakiisha Al-Shabaab oo lagu dilay qayb ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose nin gaari dad ku jiirsiiyay Shiinaha iyo gobollo Mareykanka ku yaala oo dadka laga daadgureynayo. Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah. Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo. adna qaado Hormuud saaxiibkana u qaad. mar kale subax wanaagsan dhageystayaal taariikhdu waxay ku beegan tahay 13 bisha 9aad 2018 warkaas oo dhan saaka waxa aqrinaysa wariyeena Xawluul Cabdulla Cuweyd. waa mahadsantahay Cali Ibraahim Cabdullaahi. bismillaahir rahmaanir rahiim. subax wanaagsan warkii oo dhameystiran. shirkii madaxda IGAD ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxaana heshiis ku kala saxiixday dhinacyada isku hayay dalka Suudaan iyadoo ay ka hadashay dawladda Soomaaliya. Cali Ibraahim Cabdullaahi ayaa faahfaahinaya warkan. waxaa magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ka dhacay shir ay yeesheen madaxda dawladaha ku midoobay urur goboleedka IGAD kaas oo heshiis ay ka gaareen madaxda South Sudan. dawladda Soomaaliya ayaa waxaa shirkan ugu qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. shirka ayaa lagu soo gabagabeeyay xaflad ay heshiis awood qaybsi ah qalinka ku wada saxiixdeen madaxweynaha South Sudan Salva Kiir iyo ku-xigeenkii hore ee dagaalku dhex maray kaas oo lagu soo afjaray 5 sano dagaal ahli ah oo wadankaasi ka socday. heshiiska ayaa dhigay in madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka koonfurta Suudaan uu ahaan doono madaxweynaha halka Masar Raaj oo ka mid waa madaxweyne ku-xigeenka uu ka mid noqon doono 5 madaxweyne ee wadankaasi. Axmed Ciise Cawad wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ka mid ahayd dalalkii fududeeyay in heshiiskaas ay gaaraan dhinacyada isku haya koonfurta Suudaan waxaana wali jira in shirka urur goboleedka IGAD door muhiim ah laga qaadanayo khilaafka siyaasadeed ee xilligan ka dhex alowsan wadamada koonfurta Suudaan iyo sidoo kale bariga geeska Afrika. shirka jildihiisa ugu weyn wuxuu ahaa colaadii ka jirtay South Sudan dalka beelaha jamhuuriyadda koonfurta Suudaan. maanta ayaa heshiis lagu idlaynayo lagu dhammaystirayo oo lagu soo gabagabeynayo lagu soo afjarayo colaadaas la saxiixayay. arrintaas oo ururka IGAD uu horwadeen u ahaa ama isagu uu keenay oo ka shaqaynayay heshiiskaas ayaa maanta ugu weynaa ajendaha madaxda u kulmaysay. waxaa ka soo qayb galay madaxweynaheena Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha dalka Suudaan Cumar al-Bashiir, madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Margeele iyo madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo martida loo yahay ahna gudoomiyaha ururka IGAD ayaa ka soo galay. heshiiskana horta ku hore waa ka duwan yahay waa ka dhammaystiran yahay. waa heshiis comprehensive waa heshiis maaragtay wixii la isku hayo dhan khilaafyadii la isku hayo dhan soo dhammaystiray weeye. qolyihii maaragtay ka mid ahaa colaada qayb ka ahaa oo dhanna ay ka soo qayb galeen.
wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayuu kaasi ahaa waxaana uu ka warbixinayay shirkii lagu soo gabagabeeyay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal ayaa la kulmay musharaxiinta Koonfur Galbeed oo uu ka mid yahay Sheekh Mukhtaar Roobow. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa ka waramaya. maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa xalay kula kulmay magaalada Muqdisho in ka badan 5 musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. musharaxiinta oo 7 gaaraya ayaa xubnaha kulanka la qaatay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa ka mid ah Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur, Maxamed Aadan Farkeeti wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliya, Yuusuf Baadiyo iyo xubno kale. musharaxiinta xalay lagu kulmay magaalada Muqdisho ayaa waxay yihiin kuwa shaaciyay inay doonayaan qabashada xilka madaxweynaha ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya marka laga reebo Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur oo wali shaacin inuu yahay musharax u taagan qabashada hoggaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya. kulanka oo qaatay saacado badan isla markaana gaaray xalay waqti dambe ayaa waxaa looga hadlay doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed iyo inay muhiim tahay inuu isbedel ku yimaado hoggaanka hadda talada haya ee Koonfur Galbeed. sida qorshuhu yahay musharaxiinta oo sabtida ku wajahan magaalada Baydhabo ayaa gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxay si gaar ah uga xog wareysteen sida ay laga marmaan u tahay in isbedel uu ku dhaco hoggaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya maadaama shacabka deegaanada Koonfur Galbeed ku nool ay u baahan yihiin wax qabad balaaran. musharaxiinta uga cadcad ee la saadaalanayo inay tartan adag la geli karaan madaxweynaha Koonfur Galbeed oo Shariif Xasan Sheekh Aadan oo qodiisa musharax ah ayaa waxaa ka mid ah Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur iyo wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliya Maxamed Aadan Farkeeti. dagaal u dhaxeeya 2 beelood oo wada degan hoostaga magaalada Garowe ayaa xal laga gaaray sida warkan uu ku faahfaahinayo Cumar Maxamed Soomane. kulankan oo lagaga hadlayay sidii loo dhammayn lahaa xiisad u dhaxaysay dadka xoolo dhaqatada iyo beeralayda ah ayaa waxa uu ka qabsoomay deegaanka Shimbiraale oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland. muranka ka taagnaa deegaanka ayaa salka ku hayay isqabqabsi dhuleed oo laga baqdin qabay inay keeni karto dhimasho, dhaawac iyo barakac dadka deegaanka ah. dhammaanba xubnaha ka qaybgalayay kulankan iyo ergada ka socotay dhinacyada xiisada u dhaxaysay ayaa isla gartay in la joojiyo guud ahaanba wax kasta oo keeni kara colaad nolosha dadka iyo deegaanka saameyn weyn ku yeelata. muddada uu soconayay kulankan waxaa lagu soo bandhigay inta uu la ekaa khasaarihii ka dhashay dagaalkii dhexmaray dhinacyada halkaasi ku dagaalamayay. tallaabada heshiiska ay qaateen beeralayda iyo xoolo-dhaqatada ku nool deegaanka Shimbiraale ee gobolka Nugaal waxaa aad u soo dhaweeyay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka Puntland iyo mas'uuliyiin ka socotay maamulka gobolka Nugaal waxaana ay sheegeen inay u mahad celinayaan dhinacyada beeralayda iyo xoolo-dhaqatada ah oo qaatay baaqi nabadeed ee ku saabsanaa in la joojiyo dirirta ku salaysan muranka dhulka ah. inta badan dagaalada ku salaysan muranada dhuleed ayaa mararka qaarkood waxay isku bedelaan dagaallo salka ku haya argoosi iyo aanooyin qabiil, taasi oo galaafata nolosha dad badan oo aan waxba galabsan. kooxaha hubaysan ayaa xalay dad rayida ku dilay suuqa weyn ee Bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Farxaan Maxamed Xuseen. wararka idaacadda kulmiye ay ka helayso saaka suuqa Bakaaraha gaar ahaan suuqa qudaarta ee dhinaca degmada Hodon ayaa waxa ay sheegayaan in xalay lagu dilay 2 qof oo shacab ah kuwaas oo la sheegay in ay ku sugnaayeen gudaha suuqa qudaarta. kooxaha dilka geystay ayaa iskaga baxsaday goobta sida ay noo xaqiijiyeen goobjoogyaal ku sugnaa goobta ay wax ka dhaceen. dilka kadib waxaa goobta gaaray ciidamada ammaanka iyadoona ay ka sameeyeen baaritaano halka ay wax ka dhaceen. muddooyinkii u dambeeyay waxaa suuqa Bakaaraha gaar ahaan suuqa qudaarta ka dhacayay dilal qorsheysan kuwaas oo ay geysanayeen kooxo hubaysan. weli kama hadleen mas'uuliyiinta degmada Hodon dilka ku soo laabtay suuqa qudaarta ee Bakaaraha iyadoona xalay maqrabkii lagu dilay nin daa masjidka Sheekh Cali Suufi xilli uu masjidkaasi galayay sida ay goobjoogyaal sheegeen. dhanka kale dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa xalay weerar ku soo qaaday fariisimo ay ku leeyihiin ciidamada dowladda degmada Hilwaa gaar ahaan Baar Jawhar kuwaas oo ay dhaxmartay israsaaseen xoogan. ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha rasmiga ee ka dhashay weerarkaas ay soo qaadeen dagaalamayaasha ka tirsan al-shabaab isla markaana ay ku soo qaadeen ciidamada dowladda fariisimo ay ku leeyihiin degmada Hilwaa ee gobolka Banaadir. si kastaba ha ahaatee waxaa magaalada Muqdisho ku soo laabtay dilka loo geysanayo dadka shacabka iyo shaqaalaha dowladda iyadoona aysan jirin ciidamada ammaanka cid ay u soo qabteen dilkaasi.
waa mahadsantahay farxan. mid ka mid a saraakiisha dagaalamayaasha al-shabaab ayaa lagu dilay qeybo ka mid a gobolka Shabeellada Hoose sida warkan uu kusoo diray wariyaheena Saciid Ra'iis Cali oo Shabeellaha Hoose jooga. ciidanka xooga dalka ee ku sugan magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ayaa toogasho ku dilay sargaal sare oo ka tirsan al-shabaab iyo laba ilaaladiisa ah. sargaalkan la dilay ayaa ka mid ahaa saraakiisha dhanka howlgallada ee al-shabaab ugu magacaaban gobolka Shabeellaha Hoose waxaana howlgal qorshaysan ku dilay ciidanka xooga dalka gaar ahaan guutada 14 Oktoobar ee ku sugan magaalada Marka. sargaalkan la dilay ayaa magaciisa lagu sheegay Axmed Macalin Mujaahid Zubayr kaas oo isaga iyo laba ilaaladiisa ciidanka xooga dalka goob ay ku sugnaayeen ay weerareen kadibna ay halkaasi ku dileen. saraakiisha ciidanka xooga dalka ee ku sugan magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose oo la xiriirnay ayaa inoo xaqiijiyay in howlgalkaasi sidii la rabay ay u fuliyeen ciidanka xooga dalka gaar ahaan guutada 14 Oktoobar waxaana inta ay ku dareen in ay qorsheynayaan in howlgallo kale ay ka sameeyaan magaalada oo ay ku soo qabtaan ama ay ku dilaan saraakiisha al-shabaab ee ku dhuumaalaysanaya xaafado ka mid ah magaalada Marka. howlgalkan ciidanka xooga dalka gaar ahaan guutada 14 Oktoobar ay ka sameeyeen magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ayna ku dileen sargaal sare oo ka tirsan al-shabaab iyo ilaaladiisa ayaa ku soo beegmaya xilli al-shabaab habeen ka hor weerar ay ku qaadeen fiisana ciidanka xooga dalka ay ku leeyihiin magaaladaasi looga dilay shabaab 9 dagaalame. ciidanka xooga dalka ayaana howlgallo ka wada magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose waxaana bishii la soo dhaafay 19keeda ciidanka xooga dalka gaar ahaan guutada 14 Oktoobar magaalada Marka ee xarunta gobolkan ay kala wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab iyadoo wixii xilliga ka dambeeyay dhowr jeer magaaladaasi ay ku dagaalameen al-shabaab iyo ciidanka xooga dalka. Saciid Ra'iis Cali Radio Kulmiye Shabeellaha Hoose. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle ayaa u yeeray madaxweynaha maamulkaasi. xildhibaan Cali Cismaan Ibraahim oo ka mid ah baarlamaanka Hirshabeelle oo la hadlay Radio Kulmiye ayaa sheegay inay u yeereen madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare waxaana la sheegay in wax laga weydiin doono xaaladda amni ee deegaanada maamulkaasi iyo sababta keentay in wax ka qaban waayo ballanqaadyadii uu sameeyay madaxweyne Waare. sidoo kale xildhibaanka ayaa waxa uu tilmaamay inay la xisaabtami doonaan madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. wasiirada anu yeerin waxa kamid ah wasiirkiisa amniga iyo wasiirka qorsheynta dhammaan su'aalahaas markaan weydiinay waxay u soo direen madaxda ee dowladda madaxweynaha ugu horeeyay in wax laga weydiiyo waxyaabaha ugu culus ee baarlamaanka wax ka weydiin doona ayaa waxa kamid ah ballanqaadyadii beesha caalamka oo maaragtay uu dhahay hay'adaha adduunka ayaa maaragtay gacan ka heli doona. waxa kaloo rabaa inaan ku xusuusiyo markii madaxweyne la doortay madaxweyne Waare golaha baarlamaanka ayagoo xaq u leh inay golaha wasiirada kamid noqdaan ayaa wuxuu ku qadciyay in 15 wasiir oo tayo leh oo si ay maaragtay awooddaas u ururso uu samayn doono tiyo qolkii koowaad uu ku faylgaroobay oo 7 May wasiir uu sameeyay haddana 8 bilood ka bacdi hal maalin uusan shir gudoominin waa qodob dastuuri ah. qodobka konti koowaad farqadiisa saddexaad waxay leedahay madaxweynaha wuxuu shir gudoomiyaa golaha wasiirada 8 bilood bishii 9 waa u socota hal maalin uusan shir gudoominin xaaladaha dalka kama wada hadlin. sidoo kale isla qodobka konton iyo maaragtay kontonaad kontii koowaad farqadiisa waxay leedahay madaxweynaha waa taliyaha ciidamada dalabka taliyaha amniga dowladda Hirshabeelle waxaa soo dhan su'aalo marka intooda badan asaga ku soo noqon doonaan marka haddii aan leedmo qorshaha isla xisaabtanka marka ayuu wuxuu noqon doonaa madaxweynaha markii baarlamaanka uu hor yimaado waxyaabaha ay mar walba dowladda loo sheegtay inay qarashaad amni ku bixiso dowladda Hirshabeelle saraakiishii ciidamadii inta soo dhigtooday kuwa dhintay kuna ay dhaawaceen weli meel intii ku kulmeen waajibaad qiyaan uu kala qaadiyo fuli waayeen aanan haynin saaxiibtinimadii markii meesha gubernator uu joogay ciidamada militariga ka dhaxaysay iyo maaragtay maamulka gobolka maanta ay meesha ka baxday baan dowlad noqonay oo la rabay inaan ballaarano ciidamadii aan xaq u lahayn oo aan la dhisin muddo sanada marka sidaas darteed su'aalahaas iyo kuwa wada fara badan oo dastuuri ayaa la weydiin doonaa madaxweynaha haddii uu ku qafiyo in maaragtay waajibaadkiisa uu gutinay hadda shalay waa loo doortay shakhsiyadiisa laba necba madaxweynuhu haddii uu maaragtay ku guuldareystana sida aan horey u sheegay madaxweynaha waxaanu ku doonaynaa inuu garaawsado marxaladda dalka maaragtay oo ka jirta uu bixin waayay inay ku cuslaatay sidaas darteed cid dhaanta haddii la helayo xilkaas inuu baarlamaanka kusoo celiya ayaanu ka rajaynaynaa insha allah. codkaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cali Ibraahim oo ka mid ah baarlamaanka Hirshabeelle. warka subax ee Radio Kulmiye ayaad dhageysanaysaan waxaa inoo soo socda wararka dibadda.
duulimaad raaxa leh degdegsiimaya ammaano ayr jabuuti u doono. nin ayaa baabuur dad ku jiirsiiyey fagaaro ku yaala koonfurta Shiinaha waxaana dhacdadaasi ku dhintay ugu yaraan 9 qof halka 43 qof ay ku dhaawacmeen sida ay sheegayaan saraakiil ka tirsan dowladda hoose. waxayna arintan ka dhacday fagaaraha magaalada Hengyang liiraahdo ee gobolka Hunan. waxaana la sheegay ninka dadka jiirsiiyey baabuurka uu ahaa darawal horaan dambiyo badan u geystay. saraakiisha aagaasi ayaa sheegay in xabsiga loo taxaabay ninkaas dad ku dhaawacmay ama dadka ku dhaawacmay dhacdada ayaa loo qaaday cisbitaalada deegaanka. saraakiisha dowladda hoose ee ku sugan koonfurta Shiinaha waxay ku tilmaameen dhacdadan mid si ula kaca loo geystay isla markaasna looga gol lahaa in shacabka lagu waxyeeleeyo. muuqaal baraha bulshada la soo galiyay ayaa muujinaya dadka oo ka cararaya goobta. ugu dambeyntiina dadka deegaanka ama dadka degan xeebta bari ee Mareykanka ayaa waqtiga ku socda si ay uga baxsadaan duufaanta Florenza ee ku dhifatay gobolka xoogeeduna uu soo gaari doono Khamiista maanta. duufaanta waxay hoos ugu dhacday heerka 3 waxayna wadataa dabaylo awood leh oo ku socda 195 kilomitir saacadiiba, laakiin saraakiishu waxay sheegeen in ay weli duufaantu halis tahay. ilaa iyo 1.7 milyan oo ruux ayaa la amray in laga soo daadgureeyo koonfurta waqooyiga Carolina iyo Virginia. 5 gobol ayaa looga dhawaaqay xaalad degdeg ah kuwaas oo ay duufaantu mari doonto. guud ahaan wararkii dalka dibadda naga soo gaaray oo subaxnimada Radio Kulmiye Muqdisho aad kala socoteen qiyaare waa naga inta cadii warkeena u dhaafay radiokulmiye.com.